waxaan idiri hoggaad shalay ku daganteen daraatana ku siranteen maanta inaad ka durugtaan ma dareemi weyde hadba dabin idiin dhigan nacabkiinnu soo dumay inaad dalaq tidhaahdaan ma dabeecaddiinna marna ruxudanaysa inaad daba ordaysaan miyaydnaan ka daalayn war heeled muddo badan baan luusanay inay aan ku darsada ee waxaan odhan lahaa soomaalahay dubaaqiyo caqliga eebba nugu daabay dabka wuxuu ka qaataa qalbiga lagana daaraaye haddii uusan doorsoon ku dhicin maba dambawneene subaxdaa in dagaal uma galleen dooniskibiseede daw layska maro muu noqdeen degalka keennaa gabalkan geelleeha safati lankilan gobayo hayo gobaykun kasawna walaalikii haysadu walka bedel gabay maxaad ka taqaan raggaani murti la yaqaanay ku hadleen ayay hor badanaa geela si raacdee miya war waxaa la yidhi qofkaan haysan damaanad ama dawlad lahayn oo qaran daafaca waaya dembi duul kala geystaa dusha looga raraa misna loo daldalaa war xaaladda galmudug waa soo dhammaan rabtaa mar dhowna madaxweyne cusub ay yeelan rabtaaye ee isdeji warnimada waxaa la yidhi mas-uul lagu dhoobay canaab dhumuc weyn le dadkana u dhaxeeya inuu dhan u eexdo amuse dhammaanba dhaqaalihii yaallay ka buuxsado dhiilo kollay dhaqankeennu sidaa dhigi mayna cid maa laga dheegtay yaa oghe askari dhulka hooyo dhurwaayada boobe ka dhowr lagu waanshay dhufaysna la joojiyey inuu dhadhan raaco midkii wax u dhiibo dhaqsa uga wareego kollay dhaqankeennu sidaa dhigi mayna cid maa laga dheegtay war mayleeray dhuulu dhulkiya roogdo dhogortiis leta askariga hooba dhufayska laka hilmaame inoo dhabbigeedaas ka marmay ka dhoore warnimayo waa yaraysanina aadan isdaaqabadiisa waa dhaalley war maanta gobayga 4.5 maa lagu qaybinay war dadkaaga biyo kugu gale weligay gobay ma maqale mas-uulka abwaan carays sheegayey iyo rida isnuugtaa isu macallina war abwaa ma taqaantaan wax isku nahni warnimayo waxaa hore loo yidhi arrigoo barwaaqa cuudkiina uu dhalay oon carruurta oydana aana looga soo helin bal cibaaradaa sheeg horaa loo yidhi yaa furi kara xujadaas war ayeeye ka raalli ahaada cayuus ayay cunaysa haddii aad gabaygeeda ka fahmi weyseene war ayeeye may siinartay hilli irka hadayay hoolan aana likuwaayi sheega wa siinarti ana may baan maleeyay mas'uulkii hadii la sheegay inuu erin jeenuugi anigu soomaalida la yaabay xilliga barwaaqada ilaahay roobka siiyo webigii baa nagu fatahay roobka baahaga oo korna male ayay ku cawaadaan xilliga jiidaalkana abaaraana haysa biyola'aanaa dhacday wax la cawa male ay yidhahdaan marka meel u roon lama yaqaano dadkaas duquu sheegaysa wey ayaga dhan war waa la yaqaan sida u roon hadday fahmaan biyaha inay weelaystaan wakhtiga ay ka cabanayaana ka dhiman war adeer xaaja nin la toosan nin la tuur leh war xarfaanay ha u bixina magaaladan iska boojeeyano ani waa ka wata amal ma kalaamoysa ka boota abowno xariifoo ha ku jiqino war maantay noogu darreed yaa keena ciyaalsiyada iyo balaayada geedka war maanta odayaasha wana bedelay maxay tahay surwaalkaaba ka dhaadhacaye war adeero sheega xeeradan maanta yaa noo keenay maandheeyo waxaan maqli jiray shimbirba shimbirkiisaw la duula warkan muxuu yahay abooto waxaa ku warmaysid maxaasaa war ninkii soomaalinimada diida allaha u naxariistay abwaan maxaa calikaariya hore uga jawaabay wuxuuna yidhi sareedaha hadday ku waarto haddii silac iyo dhib gaaro damaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh war maad tidhaahdaan ma loo dhashaa wadani mase waa layska dhigi karaa wadani ooyambara maybaka lahaa waa loo dhashaaya sideeba laysaga dhigi karaa wadani war ilmihiinoo siyaasiyiin ah hadday qalinjibiyaan maxaa ka rabtiin war carruurta sanadkaanba waa muxaafad iyo mucaarad waa xaq inay carruurta madaxdooda bartaan war aniga ima taqaanaane marmarka qaar waa gabyaa war ma taqaantii miyaad beddeshi war gabayga iga dhegayso dadku may baraarugin weli shacabku may baran beenaalayaashii bakhtigooda cuni jiray weli wow ballamayaan wallahi maanta waa hayste laakiin codkaada wuxuu og yahay sacir maanay weeshay ka maqan tahay alla kan maxuu lo ilaalishay war reer kalamaanow walasan ogayna ha ogaadi geedka beryaagu mayle karkaryohe waliley gabyaalad war dhari miyaa lagu kariyey mise digsi afka kiida walka karyohe idhagansoy waana hore lung ogaaday waana hati la ogya geedan soomaali maryoolay lileye qabiil haka noogdi taabaan haka deerti may ambaahanta qaran i dawladnimo ambaahanta war muwaalanta dada waa hadda qabiilka la qabsaday war qabiilka dawladda lagu soo dhisay war kale ma haysaa neew gabalkun erin malka tooba
haya warka oo dhagansoy dalku idadshay diintay furgaan waldaneeyaw dawli imbahanaaye waldaneeyaw dawli imbahanaaye waldaneeyaw dawli imbahanaaye maandhooyow hadda kahor faarax gololey oo la hadlayo maxamed siyaad barre labadoodaba allah u naxariiste wuxuu yidhi madaxweyne hadalkaadu markuu idaacadda ka baxayo waa macaan yahay sida caanan dhaaya markuu bannaanka tagane liimay ku dhiijiyaan war horuu abaan cabdilluuxu sheegay soomaalidu inay bugto wuxuuna yidhi soomaalidu way bugtaa basaad weeyo la hubi inuu cudur baani helay bidhaanta laga gartaa bidhaanta laga gartaa war adeer annagu ma bugne idinkaa buka weligeedba markaannu geelu heesnay goranyo u heesi jirtay warriya waad waalantahe soomaalidu meeshay ku dhalato kumama dhimato waddankiis ninkii ka taye wehelkiis ka dheeraade welwel mahuro welbahaar madee war kalamaanay waxaa la yidhi tigtokan la wada furtiyo siduu facebook u yimid dadkii farahu ka baxay balaayay faafiyaan xumaan bay faagayaan wixii foolxumo ah bay fiyuuska ka raadiyaan falow bay goobayaan qol bay soo furanayaan qaar waa soo fuulayaan been bay falanqaynayaan runtay ka fogaanayaan war aan laga fiirsan bay faruuryaha soo marshaan kufurimood iyo dagaal ayay firinbu u wataan sidii fiintii ayay habeenka xun fooriyayaan finnay sii kicinayaan fawday ka shaqaynayaan fal shaydaan bay wadaan fuustay wada riixayaan fadeexadun bay rabaan faar bay soo qabanayaan dharaar iyo fiid intaba farriimo xun bay sidaan intii fiicnayd ayay masana fadaraynayaan bar bay fasahaadiyeen fusuqa laysaga dayday fariidnimo moodayaan fiyoobiya waa horay xishoodba ka faraxasheen waxayba ku faanayaan wixii laga faani jiray aryaa careesow samigay cabdullo isaguna beenta baraha bulshada ka yaabay wuxuu yidhi faduulya been isfeer socda facebooka lagu faafiya faduulya been isfeer socda facebooka lagu faafiya war cabdullo anigana waxaan kaloo maqli jiray fiidmeerta duushay farintayda qaado ha furfurin adoon arag farxaddii jacaylkee ku caalolfiyooba war qorsheeyo waxaa kaloo maqli jiray haddaad saas u fududahay faadumoy faraskaagu ha ku qaado wardalaala waxaa kale hore loo yidhi farta boogta aan daro aan furfuro ee waxaa dhacay faallada markaa nabar u fadhiista keligay faraskaagi laga badi aryaa bashiiro waxaad ka tagtay in dhibaata igu filanay faraqaan ku haysta weli faalka caashaqo maygu soo fadhi xun yahaye war cabdulla axmed nurhaban ilaahda hadda kahor wuxuu yidhi ciidanka furimaha ku jira haddii loo fiirsho hoos xaqoodana laga fekero dalkaba ayagaa ku filan aryaa careesow abwaan gandaalna hadda ka hor wuxuu yidhi faaduma caddeeyey adaa laygu kaa falay waa adigu fil roon tahay haweentii fadhida meele waxba sehey fadhiyina kala ii fadhida meele war waxaan idin odhan lahaa mas-uulnimadu waa xaal baahida markaas oogan maarayn taqaano uga muhandan maqanteeda u masaafo noqoto kulla yidhi halkaas maamul lama odhan ka meermeere kumintid ayaa la yidhi marka dawladdu inay maamulkeeda ku mintidta maxaa loo diidayaa war lan welba ino minjayka mintid aynanan diidnay maandheeskow mintid khaldana la diidaya waryaa mucaaradatiin qayladiinna waa maqlay maanta oo dhan dalka dawladdaa ka mas-uula amarkay soo saartana waa in la qaataa